بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال كسو dhawaada barnaamijka su'aalaha Shibli iyo Somali Cable oo isbuuc walba aad kala socotaan TV-ga Somali Cable si gaar ah wuxuu idinka yimaada studio TV-ga magaalada Nairobi ajir aan soo koobi karin ee baa ka siiyo Sheekh Maxamuud Shibli aan la soo qayb galaalkan ka soo gudbiyay dhammaan jawaabaha su'aalaha aad noo soo dirtaan wixii kale ee su'aalaha noogu soo hagaajiyay ciwaanka barnaamijka gaar ahaan Facebook ciwaankiisu uu yahay su'aalaha Shibli iyo Somali Cable u diyaar garooba daawashada barnaamijka الشيخ محمود سولو شكرا عبد القادر السلام عليكم ورحمه الله والسلام يا اديga ee sheekh magacaygu waa saaro waxaan joogaa jigjiga ee waxaan sheekh inaan weydiiyo gabar aynu saaxiibanahay ayaa wiil ay ismeersadeen wiilkuna waxa uu joogaa qurbaha ay tire markaas ay ismeersanayeen waxa uu u sheegay in muddo uu kula ballamay inuu halkaas ku maqnaan doono isla markaana uu soo laaban doono arrinkaasina waa uu beenoobay waqti badan ayay u kalumiyay gabadhii waxa ayna tire ifasax oo waxaan rabaa inaad iska kay furto marka meherkii ay ku heshiiyeen وحمي كل هذا هاي مثل هالكاسي أي كتجي سامع دام يدو ضربتي إن الفرج ساك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عبد القادر مرض قبل مهر قبته ولا نكاحية وحي مهر كاها نكين أي نرالكو كلا تغان لبا مدو بين نقطة inay yeelato meherkii oo dhammaystiran waa di xiriir gogoleedii reernimo dhex martay iyo inay nus yeelato haddii aynan xiriir gogoleed labadoodii dhex marin oo tiraahi fanisu maa faraltum waxaad u qadarteen in la qoondeeyo laysku ogaa nuskii bay yeelanaysaa asalku waa sidaas ama isagoo kaamil ay leedahay ama nuskii bay leedahay haddiiba furiin ay timaado in nolol ku kala tagaan ama fasaq ay yimaado waxay ku waayi kartaa hal sabab ama aydaada labay ku waayi kartaa inay iyadu cafido oo ay xaq u lahaa qofka hadduu cafiyo ama meher ha noqdo ama yuusan ahaanine xaqi u dhacaya haddii la cafiyana lagama daba tegi karo laguma noqon karo ama inuu isagu shardi ka dhigo oo yiraahdo dalqadaadii waxaan kugu furayaa meherkii inaad cafido mas'alatul khulci bay noqonaysaa mas'alatul khulci la yiraahdo iyo madax furashay noqonaysaa saas darteed iyadana dalqadeedii bay milkiyeysaa oo ay madax banaanaanaysaa isaguna meherkii iyo wixii ay u qabsan lahayd baa ka dhacaya hadduu heshiiska sidaas yimaado haddii laakiin uu iska furo ama iyadoo ha dalbata ama yana dalban iyadaa dalbatay xaggeeda ay ka timid saameyn kuma laha inay meherkii yeelato iyo inayna yeelanin saameyn kuma laha inay cafidaan isagu shardi ka dhigaa saameyn kule inay waxba yeelan weydo saa darteed hadduu intay codsigeedii isaga furo meherkeedii nuski bay ku leedahay haddayna gogol isku arkeenna meherkeedii dhammaystiran bay ku leedahay billahi tawfiiq jazaak allahu khayr assalaamu calaykum marka hore waan salaamayaa sheekh magacaygu waa xuseen cabdi aadan waxaan joogaa buuro mareer gobolka shabeellada hoose Soomaaliya qofka Soomaan hadii uu qoraxda isaga oo fiirin aadanka marabkana aan raacin kadibna uu iska afuro barsoonkiisa ka waran jazaak allahu khayr alxamdulillah waxay ku xiran tahay waqtiga uu afuray qoraxdii ma dhacday mise soo jeeday hadii waqtiga uu afuray qoraxdu dhacday deegaankiisu waa saxay waa jira muhiimadu waxay ahayd maradu gobolku dhaco qofka inuu afuray nabiga sallallahu alayhi wasallam waa aqbal layl min haahuna وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم ما بس مريض مرضى قرح العادي صوم ما بس مريض إن هذا حنتين واحد عنا أفرتين أفريني وعادي هول كلاوي قارب من هلي كلمة بيد قرح العادي وحي عناني وحي حبان أما عذر رفعة فيما لا يسامحين هذه قرح العادي مركي ديب لقى في ريانا صوم كسي وأوجره حتى إنه قرح العادي صوم كسي وحبك مجرو صوم كمارنتا كحلي سوي cuntadii uu cunayna duu dambaabaya waayo haduusan aadaana kalsoonidii raacin isaguna qorax fiirinin inuu sooman yahay maalin yahayna ogaa waa qof dee wax sabab ah oo kaliftay ama banaysir raashin inuu cuno ma jirto hadayba qoraxdii soo jeeda dhacay raashinkiisina cunay maalintiina waa qado weeye soonku jabiyana ismi iyo dambi weeye inuu ka toobad keenuu baahayo billahi tawfiiq jazaak allahu khayran assalaamu calaykum sheekh maxamuud shibli waan salaamayaa in qofka Soomaan hadii uu matag uu qabto isla markaana uu isku celiyo kadibna uu soo dhaafo soonkiisa
maxaa ku dhacaya jazaaka allahu khayra alxamdulilah waxaa kuma dhacay soonkiisu waa saxaya haddii matagu intuu ka awood badiyo kusoo dhaafo nabigana sala allahu alayh wasalam xadiidka abi hureyra waxaa ka sugan man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa matagu qofku soo dhaafo qada laguma laha waman istaqaaca camdan falyaqdi qofkii kas isagu isaga keenaa qadaynaya marka matagoo kas la isaga keenaay soonka wuu jabiyaa laakiin mataga ku soo dhaafay walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa soonka ma jabiyo qofkuna dembi kuma laha billahi tawfiiq jazaaka allahu khayr assalaamu calaykum wa salaamaya sheekh qadar ilaahay ayaan ku jeclaa sheekhow intaasi kadib nin saaxir haddii uu wax sixro ma u tagi karaa sheekh sixirka ka roga amaba ka fura wax dembiya miyaa iga soo gaaraya arrinkaasi jazaaka allahu khayr alxamdulilah abduqaadir masalada sixir furku waa laba nooc nooca koobaadi waa in adkaar iyo quraan iyo wax wanaagsan in sixirka lagu buriyo lagu furo taasi dee waa wax sharcigu ku dhiirigeliyay oo wanaagsan nabigana sallallahu alayhi wasallam ninkii yahuudeed markuu sixray labadii ibn Asam ilaahay quraan buu soo dejiyay quraankii markuu isku aqriyayna xargihii wuxuu guntay oo dhan baa furfurmay marka adkaarta iyo quraanka iyo ruqada sharciga iyo waxa loo soo dejiyay ee loogu talagalay way qambadka ka mid tahay marna inay xirzi iyo xijaab noqoto marna inay cilaaj iyo dawo noqoto sadarteed hadday sixir furku tahay in adkaar sharci iyo ruqyo sharci iyo waxaan dembi ahayn la sameeyo arrintaasi way bannaantahay wax khilaafo ka jirana ma ogi hadday noqoto nooca labaad oo ah sixir baa lagu furayaa sixir baa lagu furayaa ma bannaan tahay oo culimadana qaarkood ama sharciga ereyga loo yaqaano marka qaarkood ay nushra tahay sixir furka sixir kale lagu furayaa masala khilaaf ay culimadu isku qabteen masaladaas qaar way mamnuuceen oo waxay yiraahdeen ma banaana waxaana daliishadeen cumuumka xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam in allaha lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum waxa ilaahay idinka xaaraantinimay caafimaad iyo dawo idinma gelinin culimada qaarna way baneeyeen waxay yiraahdeen waa xaalatu daruura wa daruuratu bihul mahdhurat daruuradu wixii xaaraana way banaysaa baktigaba qofku naftiisa markuu u baqo oo u banaan yahay qofka intuu sixiro la sixiro isagoo dhanba la jaanjaamo isagoo dhanba waxba qabsan waaya khilaafka saas u taaganaya waa daruura lagu xambaariyo qofkan waxaan uu sameeyay shar ugama jeedee shar buu qof ka kor qaadayaa ilaa waqtigii taabiciintu soo jiray ridwaanullaahi raximahullah ridwaanullaahi calayhim ilaa haddana waa jiraan waana iska masale ijtihaadi oo ma cumuumka xadiidkaasaa la rajaxayaa mise xaalaadkii daruurada ee muxaramaadku banaanaan jireen baa la raacinaya xataa haddii la yiraahdo masalada waxaa saameyn ku leh oo mowqifka khilaafka culimmada markaa dooda fiirisa saameynaya masalada la yiraahdo sixirku sidiisaba ma kufriba mise maaha isagoo duuduuba buu qof kastoo wax sixiriya saaxirku gaal yahay mise maaha masaladaas iyada lafteedu khilaafkeedu qadiim yahay oo imaamu shaafici iyo asxaabtiisii rag lamid ay qabaan sixirku duuduub gaalnimo uma wada ah waa dembi dhammaan nacam laakiin waxaa la eegayaa qofku siduu wax u sixiro haddii unay tahay waxyaaba la isdhaafdhaafiyeyo aan shirkiyaad kale ku jirin waa kabaa'ir dunuub haddii uu yahay waxyaabaha shirki ku jiro shaydaan la magan galayo ilaahay khayrkii loo sujuudayo waxyaaba loo sameynayana markaasuu kufri noqonaya qofka waxaa la ogaanayaa horta seeba wuxuu siraa sixirka sida loo sameeyo noocyo badan wey mid walbana qasab maaha tacaawiid iyo shayaadiin la magan galiyo inay noqoto shardi ma wada ah masaladaasaa saameyn ku leh oo haddii la yidhaahdo sixirkan qaabkan lagu furayaay qayb shirki ah kuma jirto waa muxaramaadkii kale baabu daruuraadka inuu soo galaay qowlka wajihi raajixuu noqonaya masalada kale ee saameynta yeelanaysa waxaa weeye haddiiba ay daruuro noqoto qofkii xaaladdaa qabsato waxaan la sameynayaa sixirkaana uu shirki yahay daruuradaasi shirkiga ma loo geli karaa ma loo sameyn karaa qofka si looga fakiyo ama si kale haddaan u dhignaay baabul ikraah ma gelaysaa ilaa kufrigii ikraah wuu ku banaana ikraah xadiisu maxay tahay ikraah aladabi muxuu yahay qof kale dhib haysto oon adig ku haysanin saad uga fakiso oo muslim ood u badbaadisay ikraah adiga ma kugu tahay masaa'il iska ijtihaadi u badan oon xuduud lahayn oon munaasabaad hore aan marar badan warbaahinta kaga hadlay bay ahaayeen aniga waxaa raajix ilaa inay bannaan tahay
hadday qaybtan muxaramaadka ahu noqotana qowlka sixirka mutlaqaana waxaa raajix ilaa qowlka imaamu shaafici uusan si duuduuba kufri u wada ahayn la kala qaadayo daruuraadku hadday maxduuraadka xaaraanta banaynayeen nafta si loo badbaadiyo caqliga si loo badbaadiyo maalka si loo badbaadiyo qofkan la sixray intiiba way haysataa naf bay u haysataa maal bay u haysataa caqli ahaan iyo garash ahaan bay u haysataa qofka badbaadintiisa naf in loo huraba ay banaanay haddii cadow haystaa cadowgan kale in laga fogjiyaay maxduuraadka banaanaan buu ka mid noqonaya hadday shirki noqotana masalo baabul ikraah wey daruura iyo ikraahna wax farqi oo la taaban karo oo cadaynaya daliil sharci alaho ama luqada ama sharciga ma jiro laa daliil nas sharci oo ikraah iyo daruura xad u kala sameeyay baan jirin walaa عرف اللغوي ومع استعمال لغوي أو لغة عربيت بانشرين ولا اتفاق علماء يذكر رأسنا وشريعان شرين فرق وضحي بل نصوص إكراه مركز لقى نصوص الضرورة على دير الشدايو علماء أصول الفقه كتب توضي هذا وعرفت رجع ابن حزم يكمل ليه إنه حيليه واسكم مد إكراه الضرورة اسكم مد واحد وإحنا معنا واحد كل دوين لو عرف وبالله توفيق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والسلام يا شيخ مقعيق عبد الرشيد أحمد. صلاة المغرب أي إمام ندجني رجعدي كواد مركن ندجي إسلام مركان تيلا بعد إنه لما يسني والربعين اتحاد كأفضل تحيات كأيا واحد عضي إنه اللوبي سمركان أسر استاجي وحنا إن ضدك أي حسوسي دي بيو صلابتي ضدك لا بقى بيو كرجة بين قيبنا وإستاجين قيبنا فردق أي كسوجين مركان salaadaasi maxay noqonaysaa xukunkeeda ma in dib loo soo wada celiyaa masasa ayay ku asxaysaa jazakallahu khayr alxamdulillah marka koowaad abdulqaadir oo sahwi halmaanku waa dhici karaa ataxiyaad laga tagayna waa ku dhici karaa ka hor iyo kadibna waa dhici karaa qofkan hadduu sahwiyey dembi ma laha marka labaad marka uu istaagay subxaan allah la yiri halka uu marayay bay ku xirantay hadduu wada istaagay inuu soo noqdo ma ahayn waxaan leeyahay hadduu ataxiyaadka uu ka tagay wada istaagay baan leeyahay inuu soo noqdo maahan waayo ataxiyaadka horena sunno wey taagnidan la galayna farad iyo waajib wey waajib haddii la galana sunno looma laabto ma saxnayn inuu laabto kadib dadkii hadday qaar fadhiga ku sugeen dadkaasi wax dhiba khalada ma samaynin iyagoo rajo ka qaba inuu soo laabto isaga markii la baraarujiyey inuu laabto ma ahayn laakiin waxaa laga yaabaa inuusan aqoon u lahayn oo farad baad gashay sunno looma noqdo inuusan garanaynin masaladan oo kalena jahligu waa cudur daar waay saa darteed noqoshada hadduu kas u noqon lahay isagoo garanaya salaadiisu way jabi lahayd way buri lahayd laakiin haddii dhici karta inuusan garanaynin noqoshada uu noqday waa khalad laakiin salaadii jabin mayso qolada fadhiga ku sugaysa inay had markii uu noqday la ataxiyaadsadaan dhib ma laha qoladii istaagtoo garanaya farad inaan laga noqonin inay raacaan maaha inay taagnida ku sugaan ataxiyaadka markuu soo dhamaystay ee soo noqdo faatixadooda iska akhristaan qur-aan kale iska akhristaan markuu ruco la rukuucaanna iyadana waa sidaa saxana loo golyahay hadday qaarkood oon garanayna la noqdeenna waa sidiisoo kale xun kaloo dhibaato ma laha intaasi waa xad jahli iyo qalad cudurdaar geli kara wey haddii dadka qaarkii ka shakiyaan oo markuu fadhiga ku noqday kaba goostaan salaadana dee isagoon qofkuba qaldamin baa duruuf qofka la soo darastay intuu salaada goostoo tiisa dhammaystira iska tegi karaa sidii mucaad ibni jabal radiallahu canhu ardaahu ninkii ku daba tukanaya salaadiina ku yar dheereeyey u arkay ee qisadii dheereed ka dhalan jirtay oo u sameeyey marka qofku imaam iyo ma'muumnimada niyada isku xirta hadduu qofkii ma'muumka ahaa ee goosto imaamkana uu ka goostaay salaadiisana iska wataa way bannaantahay ama sabab sharciga ha jirto ama yaanay jirin kadib sabab baa jirtay ma jirto ma dambaabay mise ma dambaabin bay saameeyeen salaada sixadeeda saameyn mayso billahi tawfiq jazaak allah khayran. assalaamu calaykum asalaam ya sheekh iyo tv-ga waxaan rabaa sheekh inuu ii sheego maalinta cusub xilima ay bilaabataa ma bacda al-maghrib mise bacda salaad subax jazaak allah khayran alxamdulillah maalinta markii laga hadlayo curfiga sharciga way kala duwan tahay marna axkaam haddaba axkaamtay ku xiranta axkaamtu markii soomka laga hadlayo salaada iyo fajrkay bilaabataa oo markii la aadaamo bisagoo sawmi ramadaana iyo maalinta ramadaan hala sooma laleeyahay dee habeen lama soomo axkaamtu qaar waxay ku tacalluqdaa iyo yoomku bilowdaa fajarka salaad subax markay soo gasho ilaa iyo maqribkay ku dhammaataa dhammaadka way ka simanta
mararna sharcigu markii maalin looga jeedo habeen iyo maalin israacaya maalan jumco oo kale sabti oo kale isniin oo kaleeto marka laga hadlayo waxay soo bilaabataa goorta maqribku dhaco maalan markaan ka hadlayno habeenka bisha ramadaan goormay bilaabataa markii maqribkii qoraxda la arkay bisha la arkay bilaabataa habeenka waa ramadaan maalinteeduna waa ramadaan jumcadu goormay bilaabataa waa qoraxda maalin khamiisa marka la joogo ee maalinta khamiis qoraxdu dhacdo ayay bilaabataa jumcadu adkaartii qaarkood oo suuratul kahfi iyo in la akhriyo sunno ay ahayd sunnanimada markaa laga bilaabo ilaa maqribka dambe laga gaadhay intaas waa furan saa darteed maalinta sharcigihii marna waxay axkaamta sharci markaan leenahay maalmaha axkaamta sharciga oo ilaahay u siiyey wey markii yowmun la yidhaahdo haddii habeen iyo maalin iswada la israacinayo habeenkaa horeeya maalintuna way dambaysaa sidan bartamaha habeenkii ka biloabo bartamaha kale ku geelaleeyahay oo nusnus u kala goolaleeyahay maaha habeenkii baa dambeeyana maaha habeenkaa horeeya haddii habeen iyo maalin sharciga la israacinayo habeenkaa horeeya waayo soonka habeen baa soo gala horeeya ciiddu markay bishu dhalato habeenkaa soo galay shawaal buu ka mid yahay ramadaankii ma raacsana nuskiina ma raacsana sakan ka midana ma raacsana in la arkay bishii waxay caddayn u tahay qoraxdu markay dhacday shawaal bay ahayd habeenkaa waa ciid maalinka dambena waa maalinkii ciidda laha habeenku waa jumco maalinka dambena jumcadii buu leeyahay leylatu carafa marka laga hadlayo habeenka carafa waa habeenka ay beri sagaalka la istaagayo xalay maqribkiibuu soo bilaabatay carafa soo bilaabatay oo leylatu carafa la soo gaaray sharcigu marka habeenkaa horeeya maalintuna way dambaysaa billahi tawfiiq jazaaka allahu khayran assalaamu calaykum wa salaam ya sheekhow ragga timaha ma diisan karaan manad sida haweenka oo kale miyay daban karaan jazaaka allahu khayran mise waxda miyay ka soo gaaraya arrinkaasi diinta maxay ka qabtaa alxamdulilah masaladu waxay u noqonaysaa curfiga iyo caadada goobta la joogo iyo waqtiga la joogo nabigu calayh isalaatu wasalaam waa sameeyey timihiisuna way dheeraadeen marna ilaa dhagahay joogi jireen marna hoos bay uga degi jireen markay dheeraadaanna ilaa garbaha bay taaban jireen sida imaam muslim saxiixiisiiya ku warinayaan fii sunan abi daawuud waxaan filayaa inuu ahaa sunanka abu daawuud iyo keyrkii in nabigu alay slat slam marar qaarkood timihiisu uu kala xidhi jiray oo lahu dafaa'ir iyo khadaa'ir iyo erayadaas ay riwaayadka kusoo arooreen saan filaya haddina xasuustaydu aan waxsi ka noqonin falkaa nabigu uu sameynaya calayhi salaatu wasalaam sunanulcaadu ahaa sunan cibaado ajir la iska siinaya maahay timaha nabigu hadduu mar sii daayay marna wuu gaabiyey mararna wuu xiiray markii xaj iyo cumro loo xiiray maahane inta kalena xiiristana ajir uma sheegin sideyntana ajir kuma sheegin midkoodnana dembi kuma sheegin waxaa jira ficilka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlayo ficilku waa 3 qaybood asal ahaan ficil waa jibilli oo ilaahay baa aadamaha ku abuuray waa la seexday waa la soo toosay qofku waa neefsaday qofku waxbuu cunay qofku waxbuu cabay kaasi sunanka ku dayashada ma galo wixii ka soo haray qaabka saasuu u seexday qaabkaasuu u seexday saasuu wax u cunay baa laga hadlaa laakiin in wax la cuno nabiga lagaga dayanaya lama dhaho in wax la cabana nabiga lagaga dayanaya in la seexda nabiga laakiin nabigu midigtu u seexan jiray 3 farood buu ku cuni jiray wax loo bismillaahi buu dhihi jiray wax looga dayanaya waa midna waa sunan caadaad oo dhaqankii dadka ah markii carabta nabiga sallallahu ka dhashay dadka carabta dhaqaab bay u labisan jireen timahooda qaab bay u samaysan jireen kabaha ay xirtaan qaab buu ahaan jiray wixii nabigu uu ka duway ee ka khasaxay baa la dhihi karaa waa dhaqan khaldana wixii kale waa hidiya dhaqan sunanul caada la yiraahdo sadarteed nabigu qamiis buu xiran jiray cimaamad weynna waa xiran jiray sallallahu alayhi wasallam qurayshtii ay dagaalamayeen qamiis iyo cimaamad weyn bay xiran jireen qamiiskii iyo cimaamada waa la xiran jiray isku kabaa la xiran jiray waxay ahayd dadku dhaqan bay ahayd dhaqankii nabigu ma dhalan rogin waxyaabaha qaarkood oo maradii baa hoos loo dheereeyey uu ka saxay maradii meelaha ina asturi jirin ha asturtuu yiri meelaha la isqaawin jiray buu la isma qaawin karo marka aadaabtii laga saxay unbaa la ilaalinaya laakiin in qamiis la xidho hadda sunno ajir laga raadiyo maaha way bannaanta in hadda cimaamad la duubtana sunno ajir laga raadiyo maaha
inaad nabiga ku dayato inaad jeceshahay niyada jacaylkaa lagaa ajirsiinaya laakiin cimaamad duubashadeedu ajir gaara ma laha xilligaasi xilliga nabiga caadi bay sal alla alay wasalam in timaha raggu sii daystaan timuhu ay meel dambe gaaraan haddii loo baahda qaarkood la dabo oo la xirxiro dabitaanka soohitaanka kama hadlayno la kala xirxiro intii la qabto marbaa dabitaanka intii qayb laisku qabto saa loo wareejiyo baa la xiraa taasaa dafaa'ir khadaa'ir la dhihi jiray ilaa nabiga alai salaam waa kii ragga ku yidhi qofku yuusan tukanin wara'suhu macquusun isagoo timihiisu gadaal u xiran yihiin yaanu tukanin saxaabada qaad ka midana nin tukanayo timihu xiran intay soo mareen waa ka isagoo tukanaya ka fureen markuu dhamaystay soo fiiri waxba ay soo fiirinin idiga khayr badan baa kuwa kaa khayr badan ku samayn jiray misaan nabiga iga khayr badan waa saxaabada kaa khayr badan oo tukanaya saa uga furi jiray buu leh baa samayn jiray waxba ay soo fiirin wax fiican baan sameeyey markaa fiicanna waa lagu samayn jiray marka waxaan rabaa inayda waa sidaas haddii curfigu isbedelo asalku waa ibaaxada iyo jawaaskaas hadday timaado xaalad isbedela oo ama dad xunxun ay u gaar tahay ama ay dumar u gaar tahay ma habboon arrintan in la sameeyo waayo wixii caadaad iyo curfi ahaa oo masaa'ilka culimmadu yidhahan tagayuru lxukmi axkaami bitagayuri الzamaani walmakaan waktiga iyo goobta isbedelkeedaa saameynaya saas darteed haddii waktigu intuu isbedelo dumar keliya lagu yaqaano ama dad xunxun keliya lagu yaqaanaay arrintaa ma wanaagsana saa inay u dhacdana wax hadda cusub ma aha raggii culimmadii qarnigii shanaad sida alxaafid ibn cabdilbar raximah allahu tacaala oo kaleetiyo wuxuu ka sheekeynayaa masaladan uu ka sheekeynaya fi tamhiid intaan xasuusto التمهيد موطأ مالك مركي وأسانيديسي معانيديسي شرحي مركو كشيكيني وحو كشيكيي حديثا وكهليي نبي كتبيسو قربها يقاري جري حولي حلي قاسي عادي عربت واحد رقو إن ايتمها سيدي استانا دادك وناكسنا رقم باي كميدهين لما لهين حولي أنا ويسو وقتي وجوك هذا مرك وقتي كان جونا دادك عيدا كاه فوريمها كي مادة باتمها دير لو يقانا إيا دادان فيعنين oo magaalada jooga dadkii wanaagsanaa iyo saalixiintii iyo culimmadii timasiideysigii dheeraa way iska daayeen inay timi iska gaabiyaan baa dhaqan iyo astaan lagu yaqaan noqotay wuxuu yiri mar waliba waqtiga goobta la joogana muuqaalka dadka wanaagsan lagu yaqaano baa ku dayasho mudan wabillahi tawfiiq jazaak allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wasalaam ya sheekh iyo bahda tv go'aynu ka qaadnay shaarubta banaan tahay in aan markaasi sii daayo ama aan la baxo jazaak allahu khayr alxamdulillah cabdiqaadir shaarubta la bixitaankeedu qofku inuu shaaruba yeeshay dhib ma laha oo timo ilaahay meeshan ku beeray mar walbana qadarkeeda in la ilaaliyo bay u baahan tahay shaarubtu waxyaabaha nabigu amray calayhi salaatu wasalaam in la gaabiyo ama la xiiray ka mid tahay uxfu shawaariba iyo anhiku shawaariba markuu yidhi gaabiya culimmadu waxay isku qabteen ma maqas in lagu gaabiyaa fiican mise makiinad in lagu xiiraa fiican laakiin sii deynta wuxuu ku tilmaamay ahlu kitaabka khilaafa buu yidhi marka riwaayad qaarkood majuusta khilaafa buu leeyahay waayo iyagaa garhkana xiira shaarubahana sii daaya shaarubada nabiga alai slam waxay ka mid yihiin waxyaabaha sunanulfitra in la gaabiya la isfaray sida tima hoose la ysaga xirayo cidiyahana la ysaga gurayo shaarubadana la gaabiyo sunanulfitra ay ka mid yihiin xadiidkii nabigana sal slam khamsun min alfitrata wili qasu shaarib shaarubada marka la gaabiyo gaabintu waxay yidhahdaan culimmadu ugu fiican ee salafkiiyo laga dhaxlay waa bishinta in lagu jaangooyo oona ka dheeraanin waayo bishinta haddii soo dheeraato dee biyahana ha kula cabto raashinkana ha kula cunto waa markaad biyo cab tirahdana biyihii dalaqa dhexda marka raashin qaada tirahdana iyadoo bishinta soo dhaaftay raashinkii aada muudsanaysa ha kula muudsata waa timahuna markay shaarub noqdaan dee ay xoogeystaan qashinkii wasakh badan bay qabtaan dabayshii bay qabanayaan qashinkii bay qabanayaan qofkuna xaalado kala duwan buu marayaa mar baad hindhisaysaa marka baa hargab kugu dhacayaa wixii wasakhi way qabsanaysaa haddii halkaa kore joogtay laba garaye haddii bishinta usoo dhaadhacday inaad cunto soo maha wixii wasakhdiiyo dabayshii iyo boodhka inaad la qabsado jeermiska ah waa iyada lafteeda waxaan isleeyahay arrin wanaagsan maaha saa darteed in bishinta lagu jaangooyo lidaalika cumar radiallahu canhu waardaa waxaa laga wariyaa in marna xadiidka nabiga laga dhigo alay slam khilaaf baa ka jira sugnaantiisa in ragga shaarbada dheer markuu arko uu qaar ahaan intan afka qaybtiisa koraa uu maqas kaga jari jiray intuu caday qaato oo saa yidhaahdo ku jaangooyo inuu ka jari jiray marka shaarubtu way jiri kartaa waana la yeelan karaa
dheeraynta faraha badan sunnada nabiga ma xasuustaan sababta xadiidka Anas ibn Malik wuxuu u waqtiyay timaha shaarubada iyo hoos iyo cidiyaha inaan qofka muslimka nadaafadiisa wanaagu inaan 40 beri la dhaafin jaritaankooda iyo gaabintooda sida way sunnadu billahi tawfiiq جزاك الله خير السلام عليكم وأنا سلام يا شيخنا الشيخ عمر كان تكون يهدي عن إنها سوق بته صراحة لا يندري لكن وحن أركي ميل له إن يهود أي سوق بته إن كان خلافة وهكذا إنه إنها كلافورا مركا إن ودي أكلافورا وحن كور يرينو شيطان يسوسيو مركا إن أرنكاس أيام كوري محن سمي جزاك الله خير الحمد لله بقدر سيدا أصل كسنة دي إنه هنا كلافورنا هذا هو نبغى نعرف سمديس ويكلا فرنان جرين الصحابة عندهم ذو فرنان جرين سيدا أصل كاوي الصلاة المقصود كذا غاية ذا أهنا هو ناقصني هدف كنا خشوع ذوال الذين في صلاتهم خاشعون إليه كأمانة صدرت عدي لكن على قفكو إن خشوع لي أي أفي عندها تهين اسكو قبتكو وحيكون حرنتها hadba gaayada iyo miraha ay xaqiijinayaan isku qabadku hadii ruuxa salaadu khushuucda ahayd marka qaarkood sawirra hortaada ka muuqanaya marka qaarkood meeshaad ku tukanayso iska furanto dad baa marmaraya marka qaarkood qofku waxa laga yaabaa in isku qabadkan ay u khushuuc badan tahay markaas kale way banaanta intaan garanayana fuqaada jamhuurteedu sidaas ay qabaan hadii u khushuuc badan tahay ama shaafiiciyada ha noqdaan marka kale ha noqdaan waxaan xasuustaa Al-Izz ibn Abdissalaam baa rag aad uga hadlay ugu horeeyay kamid aha markuu maqaasida ka hadlay qawaacida kubrada oo kuleeyahay waxay ku xiran tahay hadba sida khushuucda salaada u fiican sida qofkan oo kale hadii khushuucda salaadiisa iyo qalbigiisa xaadirkiisu in isku qabadku u fiican yahay isku qaban kara waxa oranayo waa amal yahuudna intaan garanayo وحصوغان وسلم وبليتو جزاك الله خير السلام عليكم والسلام يا أديك يا شيخ أنا كقادني وحجر الشيخ كرير كاركان ير أيه هستا أو إلا يا فترة إن شاء الله الموت وحي كبدنا العق أيه كسارة ير مركا إلى ما قرت أنت سو أفرت إن شاء الله الموت جدود أيان استعمالها العق أيان كراسو بحي كدبنا جناعسي أيان جريي وحي فائدة كصوبحة الركاسي حرام من غير سامي سوا حلال جزاك الله خيرا الحمد لله ما حلال حرام ما حلال وي لو arrimood marka aan tilmaamo heshiisyadan ama credit card ha noqdo iyo Mastercard iyo Visa card iyo wixii la dhigayay ama yaanu noqonin heshiisyadan wax lagu iibsanayo alaab la galay ha noqoto waxa isku wada xukuna dhammaan heshiisyada qaba qofku deyn ku qaadanayo loona qabanayo muddo hadduu ku bixin waayo ay interest iyo ziyaada iyo ribo fuulayso ama ha noqdo mid waraaq lagu saxeexay ama mid kaar lagu qaatay ha noqdo isku wada xukun way midna waa heshiiska mabda ahaan gelitaankiisa si asal ahaan ma banaana wixii daruuraad ay keenaan waa baabkooda inaad gashay heshiis intaa kadib hadday saa dhahda macsiyan samaynaya oo ribaan bixinaya iyo dambigaas aan galaya la yiraahday ma banaana heshiiskaas inuusan banaanayn iyo qofku inuu ku dambaabiyo inay daruuro u banaysay waa mas'alo xoolihii qofku uu qaatay ee ganacsi xalaal uu geliyay ee deynka uu ku qaatayna haddii deyn lagu yeeshay dimada qoortiisa lagu yeeshay xoolaha cayntooda maaha wixii ganacsi uu geliyay waa xalaal xataa hadduu qofku intuu tago bangi deynka qaato su'aalaad u soo noqnoqday gaari gato guri ku gato alaab guri ku gato ribo galay uu dambaabay xaraam ku dhacay xoolihii markay gacantiisa soo galeen deyn qoortiisa saaran bay noqdeen xaraantu caynta maalka iyo lacagta lafaheeda xaraantu ma gurigu galiyay isaga yeelanaya iyo gaarigu ku gatay alaabtii waxa xaraamta ka hada lacagtii lafihi inuu celiyana waa waajib oo xaqdada uu soo qaatay qadarka xaraanta inuu bixiyo ay tahay hadduu awoodo inuu diido ay tahay waa qadarka ribada ee zaidka dheeraadka laakiin lafihi la tadlimuuna wala tudlamuuna waa haddii uu ganacsi xalaala galiyayna waxaan uu bixinayaa xaraama wuxuu sameeyayna dambi uu ku galay laakiin ganacsiga xalaasha ay xaraan ma aha gurigii uu milkeena xaraan ma aha gaarigii alaabtii uu milkeena xaraan ma aha تنا من هذا الباب وبالله توفيق. جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وسلام يا بعض الصومالي كابل يا شيخ سيجارة
sheekh waxaan rabaa inaan bal sheekha aan ku weydiiyo maxaa xukunka tawasulka uu yahay iyo xadiiskii sheegay in Umar uu ku tawasulay Abbas bin Abdul Mudallib jazakallahu khayra ma sanad alxamdulillah mas'alada tawasul waa eray duuduubano dhowr macno yeelan kara ama carabiga mujmalka lagu yiraahdo way macaanida uu yeelan karo in banaan iyo inaan banaanayn way isugu jirtaa loo isticmaalo waa la tawasulay marka la yiraahdo qofku isaga wax wanaagsan oo uu sameeyay oo amal saalix oo hore uu sameeyay isagoo dhibaato haysata ilaahay uu ku bari karaa ilaahay aan dartiisa u sameeyay ilaahay dartaaban saa u sameeyay ilaahay dartaa u sameeyay uu dhihi karaa saddexdeen xadiidkii dheeraaya dhawax ku soo dumayba iyagoo god habeen bay meel chief ka dayan iyagoo safara dhagax weyn baa ku soo dumay ridii ka xidhay waa kamid ilaahay ku bariyay waalidkii baarnimadii u sameeyay midna xaalad gogol dhaaf iyo zino oo soo marto muddo uu raadin ilaahay dartii uga tagay waa ka ilaahay ku bariyay nin u shaqaynayay oo iskaga tagay oo wixii uu ilaaliyay xoolo badan noqdeen isku wareejiyay midna waa ku ilaahay wadan dartaa sida u sameeyay maanta dhibka naga qaad amal saalix oo soo sameysay iyo khayr iyo wanaag aad soo sameysay ilaahay inaad ku barido tawasulka soo gashaa tawasul bil amal saalix baa leeyahay waxa tawasulka soo gala ilaahay asmaadiisa inaad ku barido ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كبريا إلهي سيدنا هايو إلهي قادر كهايو إلهي رحيم كهايو إلهي غفور كهايو مركات كبريا يسو وحي هرو دعي كبري أطهي وحي إلهي كدونيسين تاذن قالين من عملك صالح إلهي درتا أسميو بات كبري من إلهي أمان تالا دنبي دافي جري عفيق بنا أود بنا دنبي نحريس بنات كبري إيادنا أرق التوصل بيسوق ليس إيادنا الله والشرع وأقوليه وحاسد هذا السوق اللي توصلك قف نول وض خير توميسو خير إيه طاعة إلهي ودوانشو إلهي إيه برينا هذا هذا تنسنين لو وجه رسول الله سيدحان هذا خير كوم علينا يا إلهي إيه بري تبدا في ويدي خيري ويدي لبكا إنه قاعدة إيه ويدين وسيد النبي قال له من صلى الله عليه وسلم رسول كده هي أبار بعد عادي ربلان بانو عادي حوله وابابين عرورتي باره وي بابين فصفدع الله يسقنا إلهي يسقنا إلهي نوبر هنا ورابية مركاسو إلهي بريه ولا ورابيني ساسو كاليتو نبي محاسان لو من صلى الله عليه وسلم إنه مدن إنه خير بدنا إلهي رالي وكاها سداسنا التوسل بدعاء الصالحين بالي هذا لكن وقف صالح وكبر يكره وحكى أفراد التوسل كسوق على توجه بالجاه وحلي هذا إلى هبل وجهي سان كوي دي سنة هبل ما ذن درسن عمل صالح وكلنا ما ذن شيء إلى أسماء دي سنة ما ذن شيء هبل وجهي شرفته وأكتر هذا كليهان أنا كوي دي سنة يوي توصل بالجاه بالي هذا كاني بدعوة ما بنانا marka erayga hadii la duuduubo tawasul la yiraahdo de wixii oo dhan baa soo galaya ma dhihi karo tawasulku waa banaan yahay iyo tawasulku waa xaraan midna ma dhihi karo waxaan leenahay tawasul maxaad uga jeedaa noocee hadda bi asmaa ilaahi alxusna u jeegtaha ilaahi baan amray biducaa الصالحين الاحياء tanoro wanaagsan ilaahi ku bari hadii la yiraahdo nabiga la bariisay lagu bariisay ilaahi noo bari leeyahay sallallahu alayhi wasallam amal saalix horood sameeyay haday tahay haday tahay qofka ilaahu jaaha agtaada uu kaliyahay sharafta uu kaliyahay baan kugu bariya bidca way xaraan ma banaan hadaba tii Umar uu sameeyay maxay ahayd qof nool oo khayr filayso ii ducee bay ahayd wadaalka Umar markuu radiyallahu anhu ardaahu yiri abaar bay ahayd roblaan baa dhacday xilliga nabana roblaan way dhacday waa kii soo khudbada minbarka saaran nin soo galay rasuulka ilaahay xorii waa baabeen oo beeri waa baabeen oo dadkii waa baabeen roblaan baa nasi ilaahay noo bari meel qof dhaqma isla qaacin kara wala laayay nabigu gacmuhu kor u taagay ilaahay buu bariyay hal samadana hal daruura ma lahayn markii bay daruura ay soo doontaan khudbadan laga bixin baa roob baa ku qabtay 7 maalmood wahay jumcadii kale ninkii nin baa soo galay rasuulka ilaahay adduunku halaagsamay yiri jidadkii way go'een xoolihii way baabeen ilaahay noo bari roobka naga joojiyay marka nabiga markay abaari timaado roob la'aan dhacdo ilaahay noo bari leeyahay xilliga Umar abaar baa dhacday roob la'aan baa dhacday aad loo rafaaday Abbas buu yeeray marka kaasi ilaahayow Umar baa hadlay ilaahayow nabigaagi baan kugu bariyay jiray markii uu noolaa haddana adeerkii baan kugu bariyaynaayna waraabi kaasoo Abbas soo qabtay ducee buu yiri
cabaas sida xafid ibn xajar uu sheegayay iyo waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi ilaahay oo balaayo ma jirto aan dembi keenin balaayadaasna lama qaada toobad la-aan dadkiina aniga bay maanta ay soo hormariyeen halkaa nabiga ka jooga sal slam darti nabiga adeerkii xigtadii yahay bay igu soo riixeen booskano ay keeneen ilaahayow gacmaha yagii waa kuwa anagoo dambaabnay annagiiyo toobad keenina waana kan ilaah roobna sii ilaahay roobka uu sii marka waxay la mid tahay tii nabiga lalahaa ilaahay noo bari cabaas marka cumar wuxuu tilmaamayay ilaah markii abaar nagu dhacday nabigu noolaa nabigaan dhihi jiray ilaahay noo bari haddoo nabigii dhintay maxay u dhihi waayeen bijaahi nabiyika way ilaah wejiga nabigaan ku weydiisanayna ma dheh haddana wuxuu yidhi adeerkii baa joogo aanu roob kaaga rabnaa isagiina wuxuu yidhi noo duceede qofka khayr lagu filayo wuxuu kaloo rabay cumar ahlubeytka nabiga sal ly slam qiimaha iyo darajada ay agtooda ka leeyihiin inuu muslimiinta baro markii aada loo baahan yahay aada wax loo xasuustaa sidaasay ahayd tii cumar ee jaah ma ahayn jaah hadday tahay cabaas looma baahdeenba nabiga lagu weydiisan lahaa sal slam jaaha nabiga la dhihi lahaa taa weeye takhaldan marka tawasulku jaah hadduu yahayna waa bidca wey haddii ay tahay ducada dadka saalixiinta iyo camal saalix iyo asmaada ilaahayna ومدة مشروع برنامج وناكسم بالله التوفيق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا شيخ إنسان كذب نحرب الشيخ إنه ودي الشيخ كسماء وحلي يرادون بناتها يوحنا كودا وحجر ودمضة إنه كنا هاي قربها dadka shaqeeya lacag yar ay dhiibaan hadii ay ka dhamaato mise shaqada uu ka tago ama ba laga eriyo hal sano oo buuxda xaq ayuu leeyahay bil walba oo kamid ahna lacagtaasi ayaa la siinayaa ilaa iyo sanad marka arrinkaasi ayaan rabay inaan ogaado in uu banaan yahay jazakallahu khayr. الحمد لله أنا قادر سؤال مرة بدل ما نوصل نقطة أنت ويبنات صندوق الشقالة الشركات الدولة أنظمية النظامية الدولة وهي قصبين وهي ضدك الشقالة حقوق دولة الله إلالية دنا هو دنا الله إلالية ضدك دريال كودية تحقيرين تودنا ومسؤولية الدولة هي هوس شوان صحرا شركاته أنت يوش شيء ضدك أن يكون شقاليان أنت نبتة له شقالية معها العقد له شقالية qayb dawladda u go'aysa qayb hay'ado kale oo dawladda ku dhacayo qofkani uu mudanayo iyo inta isaga la siinayo oo isku duuduuba buu dawladda agteeda qiimaha shaqada ku jooga intaasi markay meel dhigta shirkadu bay waxay u sheegay isaga intay siin lahayd dadku markay shaqo beelaan hadaba sanduuqa iyagoo dhan wax laga qaaday lagu ridayo qofkii shaqo beelana la siinayo dhibaato ma laha ama caafimaad ha noqoto ama shaqo ha noqotee wixii danta guud dawladda ay u maamulayso hay-adahana maamulka dawladda maamusho iska leh lacagtaa u go'day sanduuq bay ku dhacaysaa dawladda ay maamusho sanduuqaasaana hadhow laga siinaya markuu cadaynta meeshu ka shaqaynayay lacagtii ka go'day iyo meeshuu nambarka kaga jiro kadib waan gashan yahay baa la arkaya dhibaato ma laga barnaamij billahi tawfiiq. jazakallahu khayr. waxaan salaamayaa marka hore sheekayda diya barnaamijkeenu ka qaadnay su'aasheedana waxa ay tahay sheeqow naftayda ayaan sheekaysataa oo waxyaabo aan raali ka ahayn yacni wixii ma rabo marka ay ugu soo dhacaanna waan ka xumaadaa arrinkaasi sabab u noqon kartaa inaan cadaab ku mutaysto jazakallahu khayr. alxamdulilah maya haddii aadan ku hadlin ama aadan falsamayn nabigeena sal alay slam waxaa ka sugan in allaha tajaawaza can ummatii maa xadadat bihi anfusaha maa lam tatakalam aw tacmal haddayna afkana ka soo bixin falahaana aadan u samaynin wixii naftaada kusoo noqnoqdee ku wareegayay waxba lagu qaban maayo billahi tawfiiq. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله والسلام يا شيخ إذا دي برنامج كشيخ وحنا هاي أقول إن لبو جوري أيان لنا هاي مركل لبدا سجوري إن وان كرينا مركل العقدة إن كصوب بحذا بالكستميل أيان لديها إن أحد المباهنين أو العقدة أيان هاي السنة مركل إن العقدة سي ما دام أي أقول لهذا هاي مكب حيساس قاد دي كب حيساس سيدي الله حسابنا يا جزاك الله خير. الحمد لله هذا كوي كب حيساس والله يلنا على الصحيح. أقول تيو dadka waalan iyo sabiga iyo xoolahooda zaka way ku waajibtaa qowlka jamhuurta raxmatullaahi calayhim jamiican waxaa loo xisaabinayaa xoolahaasi markay ururayeen horey bilowdeen marba inbaa ku darmata sida ka muuqata markii ay gaaraan wax 85 garaam oo dahaba qiimihii goyn kara markaasuu sanad u bilaabanayaa marka 12 bilood ka soo wareegtana haddana waa la xisaabayaa wixii ku soo kordhay iyo lafihiiba intaas baa boqolkiiba 2 la bixinaya 2.5% boqolkiiba 2 baa lagu dhufanayaa inta ay noqoto baa zaka loo bixinayo dadka mudan la siinayo billahi tawfiiq.
جزاك الله خير سؤال شو قدام بيسات طبعا يا واحد تاي السلام عليكم الشيخ محمود شبلي وسلام يا سلام كدب ان حنونك تي بي ذا قفك قبا او داو استعماليا مسومي كرا جزاك الله خير الحمد لله انا قد حنونك تي بي ذا داود استعماليا ما كسومي كرا مثلا الاخطر كجوابي كرا ويا horta لكن وحنون لي كرا قفك حنونسن انه افر waa loo baahan yahay waa loo banay فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وحنون الله أفوري كرا ما دام داو قادنا يا حنونك هذو بري كرون هذا وقضينا يا هذي داودا عمرك حكوا فرتكون نقطنا مركز فدية بحنايا لكن أفراد وأفوري كرا أفراد وأفوري كرا قفك هذو حنون سيهي وداو قادنا يو وسن داودا أنت وسوميا وسن كمار بكرنا ما حنونك باكوسي بدنايا أما كوسي دبر دهرانيا أما وسن حنون لبعد كيسن كرين تبا داودي سوق قادنا يونا أفريا مرض كبي سوق ليس بالله توفيق. جزاك الله خير جود هنا داود يالله أنت يعني كسوق بجبينا طلبات كان برنامج كسؤال شبل يا صومالي كيبل وأذكر ساعتين تيفيجا صومالي كيبل سجار السويس مجال نيروبي برنامج كوحة عنك جيستي دكتور علي معه لك كاميرا برنامج كنت سعوني وحنا يقابلني علي محمد أبو كرسي وكلا فرسمة وحسك عشري ناصر إيو عبد الله أحمد علي وحن أمد عليه الشيخ محمود شبلي أخذنا نقرصه قيب قلي كان سوق كبير لما بجوابات سؤالها النص ترتمح كل السؤال نوصل جي عنك برامجك كان فيسبوك عنك سوي هاي سؤال شبلي صومالي كيبل أنت ندب كل مدونة طلبات إن سؤال هذا دو إب وقراضه أنت كوري سواء عبد القادر عمر عبد الله دكتور فيا سدا إنا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله